markaati furaya inaan ahay qof Kristaan ah oo Soomaali ah magaceygana waxaa la Raxmo Maxamed Aadan oo ku nool wadanka Finland waxaan sheegay inaan magaca aan qaatay Masiixa aan ku helay nabadda weligeed faafinta diinta Kristaanku waxay noqotay mid dalkeena ku soo badanaya barihii ugu dambeeyay laakiinse markaan qiyaaso qoftan ma ka muuqaalka aniga hore xagga hore aniga soo tusay oo qiyaas ahaan waa 60 jir ilaa 34 jir runtii waa qof weyn oo mas'uul ah laakiinse waxay cadeysanaysaa in ay Soomaali tahay ay isla qadxadireen ay joogto Finland taas oo cadeynaysa in aan qaadatay diinta Kristaanka diintii wadadii hooga lagu marayay taas oo ka tagtay diintii suubaneed ee Islaamka oo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isla qadxadirkan ummadda joogtana uu nabigooda yahay ee suuban hadaba muuqaal cusub ayaan iga haynaa saaxiibayaal intaan u gudagay muuqaalkan waxaan ka codsanayaa saaxiibna muuqaalkan marka hore like saarto si gaaro dad badan oo saxaabteena waad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga ee fadlan haddaad hore kanaalka ugu soo biirin hadda ku soo biir oo taabada calaamadda subscribe si ku soo gaaraan barnaamijyada iyo muuqaalada halkan ka baxa waanad ku mahadsantahay ee ku soo dhawaada muuqaalkan saaxiib runtii qofkani aan muuqaalkan iga soo tusay xagga hore waxa weeye qof dumar taasoo ah Soomaali runa isla taxadirkana ku joogta wadanka dibadiisa laakiin se waxay ka tagtay diinteedii suubaneed ee Islaamka taasoo qaadatay diinta Kristaanka ee hoog iyo khasaaraha lagu fulinayo laakiin se qofkan da'diisu weeyntay oo qiyaasan marka la qiyaaso waxay noqotay 34 ilaa 36 gadahaas ayay u dhaxaysaa oo runtii waani ka weynaan kartaa runtii waa qof weyn oo laakiin se maran oo diinteedii suubaneed ay ku soo barbaartay maadaama ay Soomaaliya tahay wanagna dalkeen 100% waxa lagu tiriyaa wadamada 100% ee muslimka ah hal paintifilis aan Kristaan ahayn laakiin se dadka Soomaaliyeed markay xagga tagaan ayaa waxay ka tahay diintooda suuban ee Islaamka kuwaas oo ku adkaysan isla markii ay yaraana kuwaas oo lagu soo barbaariyay diinta Islaamka hooyadoodii aabahoodii awaashina ay ku dhaqmeen diinta Islaamka hadaba sababta tahay in ay Soomaalidu markay halka tagaan ay diinta uga baxaan wadamada Carabta markay halka tagaan laga yaabo in ay diinta ka baxaan laakiin se Soomaalida waxa haysata aqoon darro iyo aqoon aan haysan Islaamka laakiin se Soomaali markay halka tagtay ay diinta ka baxdo waxay hoog iyo khasaare kala gurantaa wadada foolxumada ee halka maraan sidoo kale gabadhan waxay ka sheekeynaysaa in markii ay diinta Kristaanka qaadatay kadib markii ay ka tagtay diinteedii suubaneed ee lagu soo korgoriyay ee hooyada kadib markii ay ka tagtay diinteedii suubaneed ay qaadatay diinta Kristaanka ee hoog khasaaraha ayay sheegtay in ay jirto xasilooni iyo farxad iyo taas murugadii oo dhammaan ee markii hore haysatay gabihaanba ay ka tagtay laakiin sidee waa wada shaytaan u jeexay laakiin se maaha wada sax ah oo wadada Islaamka ama wadada diinta Islaamku waxay dadka u horseedaa inuu qofku ku noolaado farxad iyo deganaan iyo jawi kaas oo ishuba aan walwal ka qabin aakhiradiisa dambe laakiin se gabadhan waxay shaytaan ayaa tusay in uu wadadii xumeed uga dhigay wada wanaagsan taas oo subag iyo gabadhani waxay ku jirtaa howlgal iyadoo muslimad ma aha dharka muslimkana way isku qaranaysaa hadafkeedu waa in dadka muslimiinta ah ogaadaan waxa ku jira Quraanka maxaa yeelay waxay aaminsan tahay haddii muslimiin badan ogaadaan waxa ku jira Quraanka inay in badan ka bixi doonaan diinta Islaamka Mona Walter waa Soomaaliyeed qaxooti ahaan ku timid Sweden markay jirtay 19 sano waxay sheegtay inay ku faraxsanayd ku biiritaanka qaran reer Yurub oo casri ah oo leh xuquuq